soo dhawaada saaxiibayaal marka sheekada filimka bilaabanayso waxay ku bilaabanaysaa xilliyadii hore markii dadku si xad dhaaf isticmaalayeen shidaalka dhuxusha ah taasi darteed kheyraadka dabiiciga adduunka sida kheyraadka nolosha lagu noolaado ay bilaabeen aad u yaraadeen sida dhuxusha gaaska iyo batroolka iyo wixii limidka ah sababtaas awgeed waxaa dhexmaray dadku dagaalo markii saynisyahanadu arkeen dhibaatooyinkaas oo dhan waxay sameeyeen cilmi baaris waxayna heleen ilo tamar marna dhamaanin laakiin haddana dadka ayaa weli dagaalamay sababta way isku ekaan waayeen sababtaas awgeed dadku waxay ugu guureen dalal kala duwan kadib saynisyada waxay heleen xal cusub kaasoo loo bixiyay transfer markuu qofku u gaaro 16 sano waxaa la gelin jiray masiin oo bedeli jiray muuqaal ahaan habkan bedelka darteed qofku wuxuu noqon jiray mid qurux badan oo soo jiidasho leh waxayna yiraahdeen qof walba qurux yeesho farqi dadku u dhaxeeyo ma jiri doono laakiin sidaan hore u sheegnay kaliya dadka gaar 16 sano jirkooda la bedeli karaa taasi micnaheedu waa dhalinyarad aan weli gaarin 16 sano wax bedelid weli laguma sameeynin waxaan lagu hayaa meel gooni oo weli waa la dayacay dadka aan weli bedelin waxa loo yaqaanaa Julius hadda goobtu way isbedeshaan waxaana la tusayaa gabar la yiraahdo Taali iyadu waxay sugaysaa inay gaarto da'da 16 sano waayo iyadu waxay rabtay inay qurux badnaato waxayna rabtaa inay ka tagto gurigoodii hore u guurto magaalada kaliya dadka la bedelay qurux badan ayaa magaalada ku nool taasoo dadkii la qurxay habeenkii Taali waxay u tagtaa saaxiibkeedii runtii labadoodii way kulmeen habeenka waxayna daawanayeen dadka magaalada ku nool sidii ugu raaxaysanayaan labadoodii aad bay ugu man qabeen inay galaan magaalada taasi darteed waxay sugayeen da'da 16 sano waqtigaas gaali waxay ugu harsanaa 3 bilood 16 sano gaarto laakiin saaxiibkeedii uu gaaray sidaa darteed birtool ayaa la bedeli doonaa Taali waxay ku leedahay walwali markaas bedesho isigu wuxuu leeyahay ku suugi doonaa subaxdii dambe dadkii oo dhan waxay fariisteen hoolka maadaama maanta la bedeli doono mas'uulka arinta maamulaya halkaas yimid isiga oo dadka siinaya nolol cusub oo magaalada markii saaxiibkeedii la doortay wuxuu aaday in la bedelo laakiin markaas kadib Taali qalbigeedu wuxuu xumaaday Taali waxay u doortay fariimo badan saaxiibkeedii laakiin wax jawaab ka meelin kadib waxay aad u rabtay inay la kulanto markaasay isgelisay magaalada iyadoo aan walwalin wax kale halkaas ka yeeshay wajixisi kama markii ay gashatay maashka waxay noqotay qof aad u qurux badan markaasay gashay magaalada managerin qof garanaya si toos ah ugu tagtay saaxiibkeedii way faraxday markii la kulantay laakiin markii la hadashay waxay dareentay in si buuxda isu bedelay sidii hore loo dhaqmi jiray Taali hadda si kale ayuu yahay waqtigaas waardiyaasha magaalada iskaan ku habsaday Taali waxayna ogaadeen qof ajnabi magaalada yimid Taali waxay xirtay jaakad awood si u baxsato markay ka booday dhismaha ma dhicin ay way baxsatay waxay u cartay meel buundada agteeda ah halkaas bay isku qarsay laakiin waardiyaashii way arkeen xiligaas kibar la yiraahdo Shay ayaa timid waxay sireysay waardiyaasha waxayna la baxsatay Taali aad bay ugu faraxday waynu mahadcelisay sidaas bay saaxiibo ku noqdeen Taali waxay u sheegtay Shay saaxiibkeedii iyo sidoo ha qof aad ugu dhaweey waxayna tiri waxaan u yimid magaalada inaan la kulmo laakiin markuu isbedelay si buuxda isu bedelay laakiin Taali way ku dhibitoonaysaa Shay waxay Taali u soo madhigtaa saaxiibadeed waxayna siisaa buug ay akhrido markii Taali buug akhrido waxay ogaatay in ay jirto adduun kale oo ka baxsan kan ay joogto laakiin Taali way rumaysan waysay Shay waxay ku leedahay inay dhamahaan jirto meel la yiraahdo Smoke oo ka baxsan adduunka waxaana meesha jooga nin la yiraahdo David oo nagu qaadi karo halkaas meeshaas ayaa nolol si xor lagu noolaan karaa laakiin xitaa markay waxaas maqshay Taali weli ma aysan rumaysan waxay aaminsaneed inaysan jirin adduunka la ka baxsan kan hadda laakiin Shay waxay Taali la baxday banaanka waxayna iska siibeen fargalyaashoodii si aan loo soo dabagalin Shay waxay Taali keentay adduun hore u burburay adduunkaas hadda lagu noolaado waxay Taali ku tiri haddii aad rabto inaad noolaato waa imaan kartaa waxaad heli doontaa meel ka fiican tan meel aad u wanaagsan meesha sinaan la'aan ma jirto
sheegto qof kasta sida uu ku noolaan karaa si nabad ah. anigu waxaan la noolaan doonaa David Smoke, waxaan noqon doonaa qof faraxsan oo ka mid ah bulshadaas. haddii aad rabto inaad nagu soo biirto waxaa iman kartaa ciwaankan, waxaan kugu sigi doonaa Smoke. markii hadalkaas tir waxay siisay baabuur yar waxayna ka tagtay. Tali ma aysan rabin inay shay baxdo, laakiin jidadkoodii way kala duwanaayeen. Tali waxay inay halkan joogto ay noqoto Breti. shay waxa ay dooratay nolol xor ah, sidaas darteed shay way baxday. maanta waxay maalintii Tali la bedeli lahaa. qof ayaa loo gelinayaa si loo bedelo, laakiin lambarkii Tali lama sheegin, waayo waa la joojiyay mas'uulka koobta ayaa rabay in la kulmo Tali. waxay u yeertay Tali waxayna ku tiri shay saaxiibtaadii waa la waayay, waxayna ila tahay inaad taqaanin meesha yaaday. Tali waxay isku day inay been sheegto. balse mashiinka ayaa fahmay. mas'uulku wuxuu ku yiri ilaa aad noo sheegto meesha ay jirto shay ma ogolaanay in lagu bedelo. Tali waxaa loo celi gurigeedii hore. maalin maalmaha kamid saaxiibkeedii ayaa u yimid, wuxuu ku yiri waxaan rabaa in labadeena ku wada noolaano magaalada. tani waxay suurtagal ah markaan mas'uulka u sheegtay meesha ay shay tagtay. kali waa inay dhageysta wax mas'uulka sheegayo, markaasi magaalada imaan kartaa. Tali way ogolaatay waxayna diyaar u noqotay inay runta sheegto. hadda mas'uulka ayaa u sheegay Tali runta, in nin banaanka joogo afduubtay shay, wuxuuna xakameeyaa maskaxdeedii. David waa halis, wuxuu noqday hub lagu burburin doono adduunyadeena. wuxuuna rabaa in kooxdeenu nagu soo biirto si aad David uga hortagto una badbaadiso dunidaada. kahor intaadan bixin waxay siisay Tali silsilad, waxayna ku tiri silsiladan ayaa kaa caawin doonta. Tali way u baxday ciwaankii shay siisay, waxay dhaxda keenta ku artay wadadii tareenka. markii ay raacday raadkii waxa ay gaartay beerta u baxa. markii halkaas ku nusinaysay saacatay, laakiin markii soo toostay waxay artay beertii dab qabsaday. isla markaas David ayaa horteedii yimid, kaasoo hore wax badan ugu maqlay. wuxuuna baaray boorsada Tali wuxuuna ka helay qalab raadraaca. David wuu tuuray qalabkii sababtoo ah qalabkaas. mas'uulka ayaa ogaaday meesha Tali joogto, waxayna ciidamadeedii u dirtay halkaas. David wuxuu Tali u geeyay saaxiibteedii halkaasoo ay kula kulantay shay. Tali aad bay ugu farxday markay aragtay shay, waayo waxay halkaa u timid si ay u badbaadiso. Tali waxay u timid iyadoo mas'uulka u dirsaday, laakiin shay ma aysan sheegin arrintaas. shay wixii weydiisay ku siiyay silsiladan. Tali waxay ku beesheegtay inay saaxiibkeedii ka heshay. maalintii Tali iyo kooxdeedii waxay aadeen howlgal. howshaasoo ay in la gubo ubaxyada. Tali ma fahmin sababta loo gubayo ubaxyada, iyadoo ay yihiin ilo tamareed muhiima. David wuxuu u sheegay mas'uulku been sheegay. ubaxyadan waxay sababay in beerta agtooda ay qalalaan, taas awgeed way baabi'inayaan. David iyo kooxdiisii waxay gubeen ubaxyada, markaasay yimaadeen ciidamadii mas'uulka. shay si kama ugu dhacdo diyaaradii. Tali ayaa badbaadisay iyadoo nafteedii halis gelisay. mid ka mid askarta mas'uulka ayaa isku dayay inuu qabto, laakiin waxay dib ugu noqdeen diyaaradii. dadkii waxay u maleeyeen in dhibkan oo dhan Tali sabab u ahayd, laakiin markay ogaadeen shay tay badbaadisay u hurtay nafteedii, markaasay bilaabeen inay ku korsoonaadaan Tali. dhammaantood waxay Tali ugu biireen kooxdoodii waxayna la tageen Smoke. halkaas ay Tali markii ugu horeysay aragtay nolol horumarsan. waxaa joogay dad badan oo is madax bannaan, kaliya shaqay u baahneen si ay u helaan cunto iyo biyo. Tali muddo ayay halkaas joogtay. maalin maalmaha kamid shay ayaa weydiisay ma rabtaa inay halkan sii joogto mise dib ayaa u laabanaysaa. Tali way aamustay, taasi waxay ka dhigantay in weli nijib ku jirto ama shaki ka qabtay, waayo weli ma aysan garan ciddii runteedii ciddii beenta ahayd. runtii mas'uulka waxay hore u sheegtay in David uu yahay qof khatar badan oo hub haysta, laakiin markay halkan timid Tali waxay ogaatay in aysan jirin wax sidaas ah. David wuxuu rabaa in Tali uu qanciyo, wuxuuna la tagaa guriga waalidkiisa kuwaasoo aad u yaqaana magaaladaas. wuxuu aabaha David u sheegay Tali ay ku saabsanaa mas'uulka iyo magaalada. waxay ahayd wax la yaab leh Tali la dhacay. aabaha David wuxuu ku yiri waxaa laga yaabaa in lagu sheegin, laakiin dad badan ayaa dhintay inta lagu jiro hawsha bedelada jirkooda.
kuwaas silmi filaan ay u guuleysteen bedelidda maskaxdoodii waa la tiri xitaa dareenkoodii iyo shucuurtoodii way ka dhammaadeen quruxdoodii waxay ahayd muuqaal oo keliya markaan ogaa in mas-uulku khaldan yahay waxaan ka soo caray meeshaas hadda waxaan ka shaqaynayaa shaybaarkayga si aan daawo u sameeyo oo dib lagu daaweyn karo dadka mas-uulku waxay shaybaarkeedii ku haysaa nonasrim haddii aan hayn waxaan ka samayn karnaa daawo oo aan ku samayn karnaa tijaabooyin markay arrimaha maqshitaali way rumaysatay waxay silsiladii mas-uulkii siisay ku tuurtay dabka waxayna go'aansatay inay halkan la joogto David iyo qoyskiisa dabka dartii silsiladii way gubatay taasoo si toos ugu dirtay calaamad mas-uulka runtii silsiladu waxay lahayd qalab raadiya markay calaamad heshay mas-uulka waxay la timid dadkeedii oo waxay weerartay tuulada aabaha David ayaa la weydiiyay David meesha uu joogo balse ma uusan u jawaabin sababtaas darteed saaxiibka Taali ayaa aabihii David dilay Taali ayaa markaas carootay waxayna hortimid mas-uulka iyada ku qaylinaysa adiga waxay tiri qof lama dili doono markay taas maqaleen dadkii kale waxay rumaysay in Taali shaqaynaysa mas-uulka taasi darteed mas-uulka waxay awoodeen si sahlan u hesho meeshaas mas-uulku wuxuu qabtay dhammaan dadka deegaanka waxayna la aaday iyada maxbuus aan u wadataa inta dhaxdeeda Taali waxay heshay fursad waxayna ku sameysay qarax weyn taasi darteed David fursad uu helay inuu baxsado laakiin dadkii David ayaa la qabtay mas-uulku wuu la tagay markii Taali la joogtay David ayaa aad u xanaaqay laakiin Taali waxay tiri wixii dhacmaan ogan si kasna uma sameynin hadda waxaan diyaar u ah inaan kula noolaado weli waa in la joogi doonaa waxaan diyaar u ah inaan dadkeena badbaadiyo Taali waxay qaaday David waxayna galeen magaalada maadaama ay hore magaalada u soo martay si fiican ay wadada u taqaanay markii gudaha u kaleen Taali iyo David waxay xoroobeen dhammaan dadkii waxayna u saareen dibadda laakiin markii indhaha Taali qabteen Shay waxay ogaatay in Shay loo bedelay transform Shay gibi ahaanba way isbedeshay waxayna si weyn ugu farxday muuqaalkii cusub isla markaas mas-uulka ayaa yimid waxaana saddexdoodii gelisay mishiinka sababta waxay rabtay in iyaga la bedelo markii mishiinku bilaabmay saaxiibkii David ayaa yimid isagoo ku socda diyaarad dabkii iyo rasaastii ka dhacaya sabab dab iyo burburkii mishiinka ka dhacay maadaama mishiinku uu joogo dhammaan dadkii way badbaadeen intaas dhexdeeda hooyada David waxay ka faa'iidaysatay fursadaas waxayna xadday nurserimkii markay baxeen saaxiibkii Taali hor istaagay dagaal ayuu la galay David waxaana uu bilaabay inuu si xun u garaaco si ay u badbaadiso David Taali ayaa soo dhaxgashay waxay raxday saaxiibkeedii taasoo keentay inuu dhaco halaagsamo hadda fursad ayay heleen dhammaantoodii way ka baxeen magaalada markay meeshii yimaadeen hooyada David waxay tiri wali waqti ayaan haysanaa waxaan hayaa surumkii waxaan ka samayn karaa daawo laakiin su'aashu waxay tahay yaa lagu tijaabin doonaa Taali waxay tiri waxaan ku tijaabin karnaa Shay laakiin Shay diyaar uma ahayn waayo hadda waxay bareeto waxayna doonaysay inay sideeda ahaato Taali waxay tiri haye dhib male aniga ayaa ka qayb qaadan doona tijaabada marka aan aqoon bareeto aniga ayaa daawada isticmaali doona haddii aan sidii hore soo noqdo dadka oo dhan waa daaweyn karnaa daqiiqado kadib mas-uulkii ayaa yimid waxayna la tagtay Taali waxayna u bedeshay jir ahaan si ay u noqoto bareeti hadda Taali way qurux badnaatay laakiin waxay inay daawo ku tijaabiso nafteeda kadibna waxay qorsheynaysaa in dadka kala bareetiga ah dib ugu soo celisay sidii ahaayeen hadda Taali waxay diyaar u tahay in dad badan caawiso iyadoo arintaas lagu jiro filimka halkaas iyo ku dhamaanaya hadii halkaan nala soo gaarto waxaan kaa codsanay in channelka subscribe noo saarto duu subscribe ku weheen hadduu adigan subscribe ku waxaan kaa codsanay muuqaalka like noo saarto si meel dheer noo gaaro kambaleelkan furo si aad u noqoto daawada koowaad aad iyo aad baan u mahadsantahay